jacayl dartiis ayuu uga hadhay qoyskiisii oo Kanada u dhoofayay, balse maxay ku samaysay markii qoyskiisiina ay ka tageen iyadiina ay nin kale ay ka raacday. haddaba dhacdadan wiilkan ka oohisay bilow ilaa dhammaad aynu barnaamijkeena maanta aynu ku dahqaadayna. ha yeeshee daawada intayna barnaamijka u gudagelin, haddaa channelkan ku cusub tahayna subscribe saar, asxaabtaadan la wadaag, kusoo dhawaada barnaamijka. iyada darteed ayuu uga hadhay qoyskiisa oo dhowr bilood ka hor ka dhoofay dalka Itoobiya, gaar ahaan magaalada caasimadda ee Addis Ababa. qoyskiisa ayaa u dhoofay waddankaasi Kanada. sababta ku kaliftay inuu reerkooda uu ka hadhana waxay ahayd jacayl xad dhaaf ah oo uu qabay gabadh sanado dhowr ah xidhiidh jacayl u kala dhexeeyay. markuu soo diyaar garoobay arooskeedii waqtiguna soo dhawaaday ayay nin kale hoos ka mehersatay, waxaana god madow ku dhacday rajadii iyo mustaqbalkiisii. ayaamo wareer iyo kadeed uu ku jiray. aakhirkii bishii la soo dhaafay ayay si dhib ah oo weliba aan run iyo xaqiiqo uu si layf indhihiisa ugu arkay waxay ula aqalgashay nin kale. gabadhii uu qoyskooda Kanada u dhoofay uga hadhayada darteed jacaylka xaddaafkaana u qabay ayay nin kale si dhab ah ay u aqalgashay. Axmed Yacquub Barre oo ah wiil dhalinyaro ah oo adduunyada rajo fiican ka lahaa, hadda waxa uu ku sugan yahay magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddankaasi Itoobiya, isagoo caafimaadkiisa caadinimadii ay ka tagtay jacaylka awgii, isagoo jahwareer ka qaaday dhacdadan ay ku samaysay jacaylkiisii. wiilkan ayaa waxaa lagu magacaabaa Axmed Yacquub Barre. waa wiil dhalinyaro ah, hadda waxa uu ku sugan yahay xaafadda Booli ee magaalada Addis Ababa ee xarunta waddankaasi Itoobiya. waa wiilkana sawirkiisa aragtaan. dhacdadan ayaan waxaanu ka soo xiganay website-ka caanka ah ee Dore News oo badanaaba ka hadla dhacdooyinka iyo qisooyinka jacaylka iyo waayaha adduunyada ee la soo darsay guud ahaanba dhalinyarada Soomaalida. website-kan ah website caan ah oo badanaa aanu ka soo xigano waxyaabaha markaasi saameynta weyn ku dhex leh bulshada, ahna in lagu cudurro qaato sida tan oo kale. dhacdadan jacayl dartiis ayuu uga hadhay qoyskiisa oo Kanada u dhoofayay weliba, balse maxay ku samaysay oo nin kale ayayba ka raacday. waa kan isagoo ooyaya, isagoo walbahaar la ooyaya, ciil iyo cadhada haysa wiilkaasi dhalinyarada. iyada darteed hadda ayuu uga hadhay qoyskiisii oo dhowr bilood ka hor u dhoofayay dalkaasi Kanada. Addis Ababa ayuu ugu hadhay si iyada ula aqalgalo, aroos wanaagsan ay u dhigtaan, balse nin kale ayay si hoose halkaas uga mehersatay. waa dhacdo uguba. waa dhacdadan lagu kaliftay markaan aragnay inaanu la wadaagno bulshada. wiilkan markii uu soo diyaar garoobay arooskeedii uuna u soo diyaar garoobay waqtiguna uu soo dhawaaday ay nin kale hoos ka mehersatay, waxaana god madow ku dhacday rajadii iyo mustaqbalkiisii. hadda ayaamo wareer iyo kadeedu ku jiray. aakhirkii bishii la soo dhaafay ayay si dhab ah ula aqalgashay ninkii kale, isla gudaha magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Itoobiya. Axmed Yacquub Barre oo ah wiil dhalinyaro ah, adduunka rajo fiican ayuu ka lahaa. hadda wuxuu ku sugan yahay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya, isagoo caafimaadka caadinimadiisii ay ka tagtay jacaylka awgiis, walwalka iyo warbahaarka iyo cadhada uu ku reebay. ilaahay qalbiga ha u qabuujiyo walaalkeen. waa dhacdo dareen la run ahaantii. markii aan ka akhriyay website-kan Dore News muuqaalkana aan arkay ayaan go'aansaday inaan aniguna bartan YouTube-kan idinkula wadaago si aad ra'yigiisa iyo commenti aad uga bixisaan, wiilkan aad ugu ducaysaan ama aad talo iyo tusaale aad u siisaan. haddaba daawada soo waragtaa adigoo jacaylkaaga dartiis
qoyskaagii iyo reerkaagii aad uga hadho oo weliba jacaylkaaga ay ku khiyaamayso oo nin kale ay mehersato aqalgalkoodiina uu ka dhaco isla meeshii aad ku sugnayd ee aad iyada darteed mustaqbalkaagii oo dhan aad uga hadhay. wiilkan walba fadlan ra'isi ama talo iyo tusaale fadlan aan u ducayno. bishaara dadweynow, shirkadii ugu weyn ee dalka Mareykanka ee soo saarta alaabooyinka dabiiciga ayaa maalgashi dhaqaale u furtay Soomaalida, gaar ahaan dadka shaqeeya ee mishaaraadkoodu aanu dhaafsanayn nolol maalmeedkooda kaliya. haddaba ma tahay qof shaqeeya waxa soo galana aanay waxba uga soo harin? biilashu ma kugu badan yihiin? ma ka fikiraysaa fiiga iskoolka iyo jaamacadda semesterkeeda? kirada guriga iyo korontada walwal iyo walbahaar ma kugu hayaan? mase tahay dadka shaqooyinka xamaaliga ah qabta balse aan helin dhaqaale ay baahiyahooda oo dhan ay ku daboolaan? ma tahay qof han leh? ma tahay qof sumcad iyo sharaf iyo maamuus ku dhex leh bulshada Soomaalida? ma tahay qof suuq geyn kara badeecooyinka adigoo gurigaaga jooga? ma tahay qof suuq geyn kara badeecooyinka shirkaddan iyo wax soo saarka shirkaddan ay leedahay? ma tahay qof ku xeel dheer arrimaha ganacsiga? haddaba jawaabtaadu hadday tahay haa, waxaa tahay qofkii loo baahnaa shirkaddan ay doonaysay. waa shirkadda ugu weyn dalka Mareykanka ee soo saarta alaabooyinka productiga. waa shirkadda Forever Living Product. waa shirkad 173 wadan xarumo ku leh iyadoo badeecooyinkeeda u dhoofisa guud ahaanba caalamka. shirkaddan Forever Living waxa ay sheerar waaweyn ku leh shirkado waaweyn oo Soomaaliyeed iyadoo xarumo ku leh guud ahaanba deegaanada Soomaalida. haddaba haddii aad tahay qof shaqo doona oo raba inuu maal gashado inuuna maareeyo guud ahaanba baahiyihiisa, fadlan hore u gaar shirkaddan Forever. diiwaangelinta shirkaddan waa free, wax lacag oo laga qaadaya haba yaraatee ma jirto. waxaad helaysaa tababar free oo lacag la'aana. waxaad maamulaysaa dhaqaale xad dhaafa markaad dhammaysato tababarada asaasiga. shirkaddan gabadhii ugu horeysay oo Soomaali ah ayaa ka gaadhay darajada manager. gabadhan Soomaaliyeed ayaa waxaa lagu magacaabaa Sacdiya, waxayna ku nooshahay dalka Mareykanka. Sacdiya waxay tababar iyo la talin siisaa bulshada Soomaalida, gaar ahaan hooyooyinka iyo dhammaan dadka u baahan inay ka shaqaystaan shirkaddan una maareeyaan baahiyahooda iyo duruufaha adag ay ku gadaamaan. haddaba daawada diyaar ma u tahay inaad adigu si iskaa ah u shaqaysato iyadoo ay ku caawimayso shirkaddu kuna siinayso dhammaan imkaaniyaadka aad u baahan tahay? haddaba fadlan hore u gaadh shirkadda Forever Living Product. haddaba si aad isu diiwaan geliso una hesho warbixin dheeraada iyo macluumaad kugu filan, fadlan wac telefoonka shaashada ku qoran. waa lambar WhatsApp Mareykana ama daawada ku biir website-ka shirkaddan Forever Living. haddii kale lambarka telefoonka WhatsApp-ka waa